hadda waxaan gelaynaa macnaha Soomaalida bila la qaysatay Minnesota waa true story Soomaalida waxaan leeyahay horta waxaan dadka mar horena waa soo geliyay YouTube-ka waxa waaye kaamarooyin ku hayo oo mataqaanaa ama journalist baa ka duubaya ama waxaan hadda waa iska daba imaanaya FBI baa soo galayso dadka Soomaalida wax balaqasan waa soo xiraya marka dhamaado macnaha mudaharaadkan marka Soomaalida waxaan leeyahay war adiga dad dan yar ah tahay wadankan oo ku cusub tahay waxay ala balaqasan iska daaya nin waxaan ku arkaya meesha inuu waa true story nin meesha taagan baan ku arko qamiis wata maxaa dhacay inuu waxaan u balaqastay horaa la soo balaqastay kulaha marka waa aarsanaya kulaha shaqada tuuga ninkii tan waa shaqo ما Soomaaliya ka dhacday amar ka dhacday niman waqooyi ayaa darisaan ahayn oo guriga ijaarteen macallimiina marka nimankan waqooyi ka yimaadeen guriga mataqaanaa guriga furan bay ka tagi jireen xariif loo kala soo galay alaabtooda soo guranay u yimaadeen nimanka cunta ninka garaacay mid baa arkay ninka nin xoog leh warista budeed xoogan baa leedahay ma shaqaysatid wala xaan kale wax kale ma hayno shaqa ay kula shaqa ma ana laga alaabtooda guranaysa taas waa joog marka ما waxay ku kala garteen Falastiin dhagaxa geesgees u tuuraan oo waaye Soomaalidu laakiin street u tuuraan waana shiish meeran Soomaaliya marka joogna aniga hada dhagax baan tuuri jir oo dadka weero ciyaalka dhalinyarada amar ko yaqaanin anaga waxa waaye marka xaafad isku bixi jirnay waa isweereen jirnay adoo dakhran ba guriga soo noqonaysa Mareykanka waa yaabeen aabnaba si dhagax soo u tuura Soomaalidu waa ka dambeeyaan marka Soomaalidu dhagax xabad bay noo ahaan jirtaa anaga laakiin hadda xabad iyo balaayana dhax gash dhagaxana wuxuu ahaa weapon waa dhalin weapon Mareykanka ma tuura Mareykanka waxa ma tuuriyaa Mareykanka Mareykanka Soomaaliya tuuray odayaal bay wadahay odayaasha walaal waxay ragaalka ayuu badnaa labana saaxiibada oo halka ay la fadhiyo su'aal ay weydiinay waa nabadii ugu horeysay midna sarif ka yimid midna wuxuu ka yimid gaarisa labada nin waxa waaye sky diving aadeen dadka arka laga soo tuuro marka bas ninkan Cabdirasaaq saaxiibkay xogaa xadiis ku badan yahay xadiis bugala kan galna quraanku galay way yimaadeen nimankii video-da haya waa true story aniga yimaadeen waxaan dhageysta aniga dhulkan ku socon lahay ayro ma socdo marka Mareykan lifetime experience way I'm proud of them السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارة الأمان مركز جوجان سوماليدا لا سقطة تي في ترو ستوري تي في ودن كوة جوجا كوة نورث أمريكا إيشيا مركز جوجا وسلامتين عاوة وحنكال لنا ريسيسم كيو بوليس بروتالتي بوليس كدباتة كو هايان دتك مدو يو دباتة ودن كان كجرتا رنانتي waxaa Soomaaliya hadaan nahay waana wada qosaysa Soomaali badan ayaa wadanka degan waa la socotiin Minnesota wixii ka dhacay ninkii la dilay George Floyd oo ah meesha Soomaalidu ay degan tahay mataqaanaa mudaharaadka ka dhacay Soomaali badan baa ka qayb gashay Mareykanna dadka cadaanka Soomaali Afrikaan iyo dad madow ayo kala ma jecel madow ba u nahay marka inaan runta isu sheegno carruurteena u sheegno annaga isu sheegno dhibaatada wadankan ka taagan iyo wixii madowga soo mareen ayaa loo baahan yahay waxaana intaan u gelin dhibaatada wadankan ka dhacday waxaan leeyahay Soomaalida nafteeda racism ayaa ka jira wadankeena annaga nafteena Soomaalida waxay tiraahdaa ninkii gurigiisa yeela ayaa guri kale ku dara marka koow inaan teena ka hadalno ayaa aniga ila fiican dhibaatada anaga isku hayno dadkan yasno iyo mataqaanaa wax wadankeena ka taagan talabaad niman odayaal ayaa caawa meeshan jooga oo hadda korshowga kala qayb galay oo su'aalo qabo marka ayagana waa wareysan doonaa marka wixii su'aalo qabtiin ta kale hadda waan soo gudbin doonaa dhibaatada ka taagan wadankan iyo waxa madowga soo mareen Cabdirasaaq kow maxaad weydiinaysaa oo ku darsanaysaa yaho baasanta koodhe hortan aad fariba aad iyo aad fari Soomaalida jecel yihiin oo maartay ma sha Allah waxa ku jira ninka saxabka caadida ayaa taanta mala ka hadlay
sheekadii waffle house-ka oo aada nooga sheekaysa hadda ka hore maxay ahayd markii maqaayadaan tagnay maqaayadda aad tagteen ha horta runtii joog aniga waxaa ku caanbaxay joog la-aan ma soconayso oo joog waa ina geliyaa saaxiibadiina geliyaa taas waxaa waaye maqaayadaan tagnay caydid wuxuu noogu sheekeeyey saaxiibkay cabdiqaadir xasan cadde in la yidhaahdo marka niman baa meesha ku aragnay qaraabadiisa nin baa kusoo booday war cabdiqaadir xasan afey buu yihi marka aniga waa xasan caddiye afey waaye ninka buu yihi waraa daranta ma taqaanid aniga anaa daba socday waa ogyahay anaan rekoor garaynayo marka ninka saaxiibkay waxaa la yihahda cabdiqaadir xasan afey ha gabadhi balaasada ku aragtay maxay tiri gabadha balaasada ku aragtay waxay tiri odaga anigoo dhar xun qabay aragtay oo lug ka dhutinayo waa true story gabadhi waxay tiri odaga markuu showga keenayo jaakaduu qaba waa shidan yahay waa nin xayiya ilaa odaga oday qalqallooca marka waxyaalaan dhihi karin baa anu ku eri haddii u baahantiinna waa sheegaya odaygii muxuu ahaa generaalka ahaa militariga ahaa duuliyaha ahaa diyaaradda laga soo siitaaye waa run macalin buu i ahaa allah u naxariista waa dhintay magaciisa ma raba inaan sheego dad uu ehelkiisa meeshaan jooga laakiin nin fani o waa ninkan joogiska ka bartay 1950 something ayaa waxaa loo qaaday qaahira militariga ko saa la socotay masaarida waa dadka ugu horreeyey oo militarigana tababari jiray markii la geeyey baa la yihi baratruber baa laga dhigay siinaa dushooda isagoo marayo waxaa la yihi ninkii bood diyaaradda ka bood ninkuu adiida aasaha qoorta haraati intaan laka qabto nala tuuruyo ninkaanu nin xaafidu qur-aan u ahaaye intaan dhulka soo gaarin 14 boqolka dhameeye kulaha dhulku markuu kusoo dhaco yiri waa risaan gareey maxaa dhacaa la yihi bayni samaa wal arda dhexdooda ku dhiman maayo raano waa true story hadda waa sheekadaasi marka hadda waxaan gelaynaa macnaha soomaalida bila la qaysatay Minnesota waa true story soomaalida waxaan leeyahay horta waxaan dadka mar horena waa soo geliyey youtube-ka waxa waaye kaamarooyina ku hayo oo mataqaanaa ama journalistayaal baa kala duubaya ama waxaan hadda waa la iska daba imaanaya FBI baa soo gelayso dadkan soomaalida wax dadkan balaqaysan waa soo xirxiraya marka uu dhamaado macnaha mudaharaadkan marka soomaalida waxaan leeyahay war adiga dad dan yar aad tahay wadankan oo ku cusub tahay waxyaalaha balaqaysan iska daaya nin waxaan ku arkaya meesha inaa waa true story nin meesha taagan baan ku arko qamiis wata maxaa dhaca layidhi waxaan u balaqaysta horaa laysoo balaqaysta kulaha marka waa aarsanaya kulaha marka taasna taas baraha qaraabada iyo qaraabadaada dukaan waxaa la yidhi bahasha niyo waxay daawo ka tahay tear gaaska marka qaraabada waa la smart maya wax badan tear gaaska xataa coronaviruska daawo u tahay markay tagaan qaraabada in ay kulli afmadow iyo waxay ka yimaadeen iyo sarif iyo ninka saciid aha maanta waxaa ku yidhi maxay ahayd ma xasuustaa markaa sii soconay ma saciid lama geli karo nin oday waa marka waxaan hadda inii sheegayaa mataqaanaa arrinta haddaan kusoo noqono demonstrationka iyo waxa ka socda dadka madowga horta dhibay soo mareen waa wax true story jira ilaa 400 years ee dadkan la gumaysanayo hadda ka hor booliiskuna aniga nafteyda sheeko ku dhacday inii sheegaya oo true story askar anoo aeroboortka ag maraya ayaan dhaweyd barking lotkan gaari dhigta nin madow baa la raadinayay laba booliis joojisay anoo tabcaan oo socon la gaariga ku gaarsiiya dhaa askarta joojisay waxay dhaheen mataqaana nin madow baa dad haraas gareeyey dumar haraas gareeyey aan raadinayna ID-ga keen war mawaalidii baa ani haddaan la haraas garan baa nasiib leeyahay anaaba lafeeg u soo la marka madow haddaa tahay dhibaata waddankan ka jirta dadkan madow dhib ay soo maray 1973gii waxaa jira show uu samayn jiray nin la yidhaahdo mataqaana Red Fox Sanford Asan baa la dhihi jiray Lamar baa la yidhahdaa waxaan wax cusub ma ahan odaga wiilkiisa wiilka wuxuu yidhi aabe dadka madowga waxaa laaya heart attack iyo maaragtay iyo diabetics iyo blood pressure baa laayo yidhi cholesterol waxaasaa laysu yidhi adigu waa soo booday no I think the police buu yidhi waa 1973 waa run
marka waxaa waaye dadka madow haddaad tahay dhibaataana haysato laakiin waxaa la rabaa booliis hadday joojiso soomaalida oo iska dhigayso ilmaha meesha ku dhashay ilmaha ha dhibaata imaanaysa iska dhigana laysanka dhiiba exactly cooperation sameeya waxaa waaye wax laguma yeelayo maalin dhaweyd aniga sheeko ruan kale inii sheegaya gabar yar u ahay baa ila socotay she's 17 years old yaraan saaxiibna gurigiisaan tagnay meel bay waxbaan kusoo fiirinayay halkan gurigayga agtiisa isla far from here askari baan soo daba raacay goneeda yartaa gaariga waday waxaan ku yidhi awow waxaa baqin askariga waana joojinaya marka experience aan u lehay wuuna joojiyey markuu nagu shitay how you doing gentleman kulaha waana fiirshay isla markiiba wuxuu rabay markuu arkay gabadha yartaa ninkii dib u degay wuxuu ID ma haystaa ID weydiiyey aniga ID way qaaday wuxuu yidhi intee u socday guriga u soconaay wuxuu yidhi okay waa marka adiga naftiisa cooperation aad ka rabaa inaad resistance samaysid oo dagaalantid ma ahan dan kuguma jirto adiga laakiin fiiri maanta Atlanta shalay ahayd waxay ahayd arbacadii hadda axad baan joognaa laba acdaa ha labada dhinac cad meeshaas haddaa fiirisiin waxaa leedahay University Avenue less than half a mile baan deganaan jiray 1982 Washington Street baan deganaa stadiumka lagu qabtay Olympiga oo Maxamed Cali Kalaay meeshu ka shiday 1996 waxa waaye torchka Olympic markii lagu qabtay meesha horta madow baa u badan windows baa laga furay nin madow baa wuxuu seexday sida newskay ka aragteen drive through buu seexday askar baa loogu yeeray marka askarta loogu yeeray laba nooc cadaan ay ahayd ninkii madow way kiciyeen way ka shakeen inuu khamro cabay banaankaa loo soo bixiyey ninkii wuxuu yidhi mataqaana hal biira cabay gabadheeda birthday-geedu ahaa bas isla markii ninkii gardaduub bay u qabteen ninkaan nin xoog lahay ninkaan nin madoowa oo fuufo cunay haddaan yaryar oo masaakiina ummadda labadiiba nogaadu ka dhigay taysir ka qaato wuu carray way toogteen ninkii marka waddankan waxaan la yaabana feere soomaalidana waxaa ka qasan nin cunug caddaana wuxuu ku dilay church 9 qof asagoo noola la qabtay cunugii dadka ku laayay Columbine iskuulka asagoo noola la qabtay nin madow oo ninka New York lagu dilo kale hore laga dilayaa marka waxaan wax systematical waxa la dilay Minnesota oo $20 lagu dilay $20 baa lagu dilay George Floyd looga istaagay ha qoortu uga istaagay dhan baa yaabay ha adduunyada dhan laga arko meel kasta laga mudaharaado marka waxa waaye madow haddaad tahay waddankan dhibaata ka haysato marka dadkana waxaan leenahay please especially dhalinyarada inta ku dhalatay Soomaaliyaad tihiin dhaqan baa leedihiin muslim baa tihiin waxa waaye waxyaalaha qaarkood ka carar haddii askari ku weydiiyo tartiib ula hadal haddaa tartiib ula hadashay ku dilaayo inta sano hadda Maraykan aan joogtay waxaana kale weliga ma arag intaan Maraykan joogay Maraykan waxaan joogay almost 40 years ilaa iyo Reagan baan madaxweyne ka ahaa waddankan intaan joogay waxaas dhan waxa shidaya waa ninka madaxweynaha ka ah isaga ka maalin dhibid wuxuu yiri Oklahoma mudaharaad baan ka sameeyay rally baan ka sameeynaya waa maalintii madowga 300 oo qof oo madow ayay ku dileen nimanka cadaanka maalintii ku aadiyay safetygiisu u baqay waxa la yiri Georgia ta kale ninkan maalin dhibid tear gas baa lagu shubay America tan kama dhicin dadka ku mudaharaadayay White House tear gas baa lagu shubay ninka filanimadiisa markaasuu intuu tagay buu foto abu ku sameeyey mataqaana bible kaniisad ku sameeyey markuu soo baxana bankar buu galay bankarku wuxuu ku leeyahay dadka inspection baan ku sameynaya arif saacadii bar buu ku jiray asoo darajada ka fiirinaya dadka ma tagan dhahay ala soo musawir true story ha meesha tuu soo qoray marka waddankan waxa ka ina horta madaxda haday yihiin sida tuuga camal oo kale exactly shaqada tuuga noo wadaay shaqada tuuga ninkii yiri tan waa shaqo ما تاس Soomaaliya ka dhacday amar ka dhacday niman waqooyi ayaa darisaan ahayn oo guriga ijaarteen macallimiina marka nimankan waqooyi ka yimaadeen guriga mataqaana guriga furan bay ka tagi jireen xariif loo kala soo galay alaabtooda soo guranay u yimaadeen nimanka cunta ninka garaacay mid baa arkay ninka nin xoog leh warista badiyay xoogan baa leedahay ma shaqaysatid wala xaan kale wax kale ma hayn shaqa ay kula shaqa ma ana laga alaabtooda guranaysa taas waa joog marka waxa waaye waxyaalo badan baa soo socda su'aal waxaan qabaa maalintii oo ninkii George Floyd la dilay oo Minnesota dad badan oo mawduuca ajnabi isku soo baxeen
markii ninkan oo maxaa la yidhaha kuwaan cadaanka iyo madow marka amerikaan si u kala garteen falastiinka iyo soomaali yani sidii dhagax u tuuraan oo maaragtay u kala gartay mi ama habka u ogaaday inuu soomaali iyo falastiinka ma waxay ku kala garteen falastiinku dhagaxa geesgeesa u tuuraan oo waxa waaye soomaalidu laakiin street u tuuraan waana shiish meeran soomaaliya markaa joogna aniga xataa dhagax baan tuuri jiray oo dadka weero ciyaalka dhalinyarada raaca markoo yaqaanin annaga waxaa waaye markaa xaafadaas isku bixi jirin waa isweereyn jirin adoo dakran baa guri kusoo noqonaysaa maraykanka waa yaabeen aabnaba si dhagax soo tuura soomaalidu waa ka dambeeyaan marka soomaalidu dhagaxa xabad bay noo ahaan jirta annaga laakiin hadda xabad iyo balaayana dhex gasho dhagaxana wuxuu ahaa weapon waa dhalli weapon maraykan ma tuura maraykan waxaa ma tuuri yaqaan maraykanka minneapolis soomaaliya tuurayo odayaal bay wadahayo odayaasha weli cad waxay ragaalka ayuu badnaayeen sida sharafta aad noo qaabishay showga aad ugu xiranahay dad badan baa ku xiran meeshaan tagno waana la weydiiyaa war ninkii mataana ma atlaabtu tagaye intee laga helaa celebrity noqotay xisaabta wax naga soo gaarsiinaya maya insha allah horta waxa waaye aniga dadka inaan hadda coronavirus baa jira dadka in la madadaaliyo joog loo sheego ayay u baahan yihiin aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa dadka showgeyga ku xiran oo mataqaanaa fiirsada oo soomaaliya jooga north america dadka biil baa ilaahay qoorta u geliyay marka waxyaalo badan baan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa dhibaatada soomaalida meeshan ka haysata iyo dhalinyarada kusoo yaacaysa midaan dhihi lahaa anigu waa hordhac yar gabdhaha soomaalida oo u maleeyo nimanka maraykan jooga inay barwaaqo haystaan kuwa waddanka jooga khayr inuu ku jiraa marka kuwiinaas ku ekaada meeshan wax lagu hayaa iska yar marka closing argumentig macnaha closing pointigaan joognaa waxaan leenahay marka kulligeen wayna salaam